qisadii Nebi Yuusuf oo af Soomaali ah si aad ula socotid ku soo biir YouTube-kan. Xaaskaygii Raxiil waxay dhashay 2 wiil, Benyamin iyo Yuusuf. Way iga dhimatay. Ilaahay u samiriyo iimaan iga sii. Innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Allah waa dhakhaatiirtii Kancaaniyiinta ahaa oo soo socda. Anaaba u sheegay sug. Aabe, dhakhaatiirtii Kancaaniyiinta baa soo socda. Iga daa, way daaheen gooray dhimatay bay yimaadeen. Dandhaday ku jirtaa. Ikaadaan soo eega sug. Waan ku salaamay nabigii Ilaahayow Yacquub, salaamu calaykum. Waad soo daahday. Aad baa soo daahday. Raxiil miyay dhimatay? Waa dhimatay. Nabiyada waa la imtixaamaa. Dhibaatada nagu dhacday Ilaahay oo samirkii iimaankeeda na sii. Innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Allah gabadha dhimatay walaasheed baa tahay. Ilaahay samiriyo iimaan ha idinka siiyo. Waan kaaga tacsiyeynayaa. Benyamin wuxuu dhashay xilli aynu safar ku jirro. Wuxuu ku dhashay waddo xaggan iyo xaggan aan la isu dhaafayo. Allah ha ku barakeeyo aabe. Waa barakaysan tahay. Allah ha ku barakeeyo. Ma barakaysna. Waa wiil yaroo nuxuusa. Waaba qofka sababay hooyadii inay dhimatay. Iga daa hadalkiisa. Waa nuxuuse. Nuxuus u bixi. Nuxuus u bixi. Kan waa nuxuuse. Ilaahay baa waxna dila waxna nooleeya. In Allaha yuxyi wa yumiit. Eedkuma leh cunugani wax dhintay iyo wax nooltoona. Magaciisuna waa Benyamin. Wiilkaygii weeye. Midigtaydu taagan yahay. Gacantaydii midig weeye. Benyamin baan ku bixinayaa magaciisa. Waana barakaysan yahay. Waa wiil barakaysan. Aabe, Allah ku barakeeyo. Eedda kuma tahay adigu? Eedda Yuusuf baan ahay. Raxiil wiilkay dhashay. Alle eedda hooyadaa baan kugu xasuusanayaa. Waa ku tacsiyeynayaa eeddo. Waa ku tacsiyeynayaa. Kan madaxa kaa dhunkaday. Eedo, waxaan maqlay qofka Ilaahay marka uu jeclaado agtiisuu geeyaa, jannaduu geeyaa, wuuna u naxariistaa. Arrintaa ma runbaa?
ha eedo arrintaasi waa run. ilaahay qofka markuu jeclaado wuu naxariistaa, jannadiisana wuu geeyaa. eedo hooyaday ilaahay jannadii ha geeyo, hana u naxariisto. hooyo qof fiican bay ahayd. ha eedo hooyada qof fiican bay ahayd, ilaahay jannadii buu geynayaa. laakiin eedo kama maarmo hooyaday, waanu murugoonayaa. eedo adiga iyo aabbahaaba samir iyo iimaan allaha idinka siiyo. dhammaanteen waa u murugoonaynaa. wiilkan yar quruxdiisa iyo caqligiisaan yuusuf aada ugu bogay. dadka wuu ka duwan yahay, la mid ma aha. waa cajiib. jooji waxaad ku hadlaysid, dadku waa isku mid, kamana qurux badna kamana caqli badne. laakiin quruxda wejigiisa ka muuqata, hadalkiisana waxaa ka muuqda caqligiisa. iidaa wiilkan aan soo koriya, eedadii baan ahay. sambuuskii hooyadii ugu galo. arrintaas may anay hooyadii igala dardaarantado ma doonayo inuu cidlo dareemo. anaa ku filan, iska daa waxaas. laakiin adigu dee kuma filid, carruurtaadaaba badan, imaada hayn kara. aniga ayaaban ka maarmin yuusuf. ilbiriqsi inuu agteeda ka maqnaada ma doonayo. yuusuf weligii agteeda inuu joogaan doonayaa, kama maarmo. idiina safarku aada buu u dheeryahay. safarkani waa safar dheer. muddo badan baynu soo soconnay, hawl badan baynu kala kulannay, laakiin waxaan dhadhownahay. haddaba dhadhowna ma fogin. fiiri, waa kuwaa shimbirihii meel biyala iyo magaaladii baynu nimi. waxaanu nimi magaaladii, meeshii nolosha inta iga hadhan ku noolaan lahaa. soo socda soo socda. allah, waa nebi yacquub iyo safarkiisii. waa kuwaa soo socda. soo dhawaada. allah, soo dhawaada. assalaamu calaykum, ahlan wasahlan. ku soo dhowow nebigii ilaahay yacquubow, soo dhowow. meel lagaa jecel yahay, magaalo lagaa sugayey. waana kaaga tacsiinaa geerida ku timi xaaskaagii. ilaahay ha u naxariisto. ilaahay baa waxna dila waxna nooleeya. qadarta ilaahayna waa ku kalsoonnahay. ilaahay baana dadka abuurtay, isagaana dila. soo dhowow soo dhowow soo dhowow. magaalo dhan oo kuu diyaara oo ku soo dhoweynaysa. waa idin salaamay, waa idin salaamay, waa idin salaamay dhammaantiin. waa idin salaamay, waa mahadsantihiin. soo dhawaada. soo dhawaada. soo dhawaada. soo dhowaada, soo dhowaada, soo dhowaada, soo dhawaada. soo dhawaada. soo dhowaada, soo dhowaada. waa ku salaamay. soo dhowaada. kasoo dega fardaha, kasoo dega, kasoo dega. waa daasheena, soo dega. soo dega, soo dega.
waa daasheen isii usha waa daalay. walaal waxaan ku weydiiyey, adaa iga weyne aabbaheen isxaaq hagaad ku aasteen horta? dee halkaasaanu ku aasnay xabaashii nebi ibraahim iyo saara calayhi salaam baanu isxaaqna ku ag aasnay. waa runtaa anaa kaa weyne, waan saas weeye. waxaad u sheegtaa dadka inaynu soo booqanayno xabaasha ibraahim iyo isxaaq iyo ayeydeen oo meel ku wada aasan. waxaad ii keentaa alaabtan berigii ku dhiibay aan kuugu dhiibay anaa hadda bax orday keen ord. سلام الله على إبراهيم الخليل. aad baanu ugu mahadnaqaynaa aabbaha isxaaq oo abaal baanu u haynaa. annaga oo mushrikiina oo kancaaniyiintoo dhan aanu nahay mushrikiin ayaa ilaahay noo soo diray oo uu xaqana tusay. adiguna maanta waa adiga noo yimi adoo nebi ilaahay. walaal waxaa fiicnaan lahayd maanta in aabba inala joogo aabbaheen isxaaq ama isagoo sakaraadaba aynu kor joogno oo inala dardaarmo. maxaa yeelay aniga xilligaa wuu ila dardaarmay, hawshigala dardaarmay. waad iska yaraydo anaa kaa weyna walaashaaya. hawshigala dardaarmay iyo hadiyadu iigu kaa dhiibay oo waan kuu hayaa. hadiyad iska qaadanaysid maaha, waa hadiyad mas-uuliyad ay walaal saaran tahay. waana kuu sharaxi doonaa. waana tan hadiyaddii haddaan kuu dhiibayaa. khamiiskani waa khamiiskii nebi ibraahim. khamiiskan walaal waa khamiiskii nebi ibraahim. waxa uu dhaxal siiyey wiilkiisii isxaaq. isxaaqna wuxuu ku yidhi nebiga kaa dambeeya u dhiib. aabbaheen isxaaqna anuu igala dardaarmay. waa anigaa maanta gacanta adoo yacquuba kaa soo saaray. ilaahay baa mahadle haddaan dardaarankii aabbahay gutay oo aan maanta iska wareejiyey mas-uuliyaddii. adigana waxaa lagu faray inaad nebiga kaa dambeeya aada u dhiibtid. saasaa walaa laygula dardaarmay. aniga intii laygu yidhi waa kuu sheegay. mas-uuliyaddu aday ku saaran tahay. towxiidka dadka si aad u gaadhsiin lahayd, shirkiga uga ilaalin lahayd. waa mas-uuliyad weyn. dardaaran waalid iyo waxyi ilaahay iyo dadka in towxiidka loogu yeedho waa mas-uuliyad weyne. ilaahay ha noo fududeeyo. allahu akbar. soo dhawow nebigi ilaahayow. aada baan ugu faraxsanahay la kulankaaga. aada baan ugu faraxsanahay. aabbaha isxaaq markii uu naga baxay kadib maanu arag nebi. haddana wiilkiisii baa noo yimi. ilaahay inuu mid kaleeya hanqiraynaa. adiguna nebiga ilaahay tahay. waad mahadsanta. dhammaan dadka oo dhan waa idin mahadnaqayaan. kancaaniyiintoo dhan baa idin mahadnaqaya. waryahay yaad u malaynaysaa in aabbaheen hadduu dhinto khamiiska uu u dhiibayo? dee waxa u dhiibaya ninka inoogu xooga weyn unbaa nebi noqonaya. war been baad isu sheegteen labadiinuba. waxba ma fahamsanidin. waxaa weeye qofka idinku iimaan badan ee idinku akhlaaq badan ee idinku cibaadada badan baa noqonaya nebi. maaha meesha xoog
gaajaana haysa. waa maxay dee cashana sii hooyo maanta dhow ku sugaynaaye war dee suga dee cuntada waa ciyaalku maxay yihiin waad aragtaa cunug inaanu hayna see maxaa ku dhacay haddaan idiin gurayaa suga haye oo anigaa idiin guraya hoo adigu waad sugaysaa hoo adiguna yaraa hoo adiguna rootigaa ka cunaa war maxaa dhacay war maxaad u cashayn laadihiin maxaa dhacay dee wax yar baadna siisay yuusufna cunto badan baad siisay aamus waryaa saa hawla hadlin caruurta seed u hadlaysaa bal keen aan yarka kaa qabtee aad ciyaalka cashaysiisid bal ii dhiib waare sidoo durkaba soo fadhiista anna wada la cashaynayaa walaal waxaan filayaa in gabadha carruurta ay aada ugu farabadatado ayaan maamuli karin aniga waxaan filayaa inay habboon tahay inaad yuusuf ii dhiibtid aan yuusuf koriyo anigu carruur ma dhalin walaasha kaa weynna waanahay haddana dee da-baabaan iska joogaa marka waxaan jeclaystay yuusuf maadaama hooyadii dhimatay anaa korinaya anaa ku filan gabadhan 10 carruura carruurtaa badan ma korin karto marka bal yuusuf aniga ii dhiibsay carruurtada waqti uga hesho waad aragtaa say ugu kadeedan tahay waxaan filayaa hadda inay saasi dantu kuba jirto oo ay khasab tahayba yuusuf anu kama maarmi karo inuu meel kale ku noolaado anigu walaasha qanimaadan igu aamini karin naftayda oo saan u ilaalinayaa maxaa dhacay gabadhu 10 ciyaalay dhashay kuwana waa ku dartay waxaas oo dhan ma korin karto yuusuf anaa ku filan waa isfahmaynaa yuusuf aad baan isu fahmaynaa yaa walaaltaa u fahan waxaan waa dan weeye maaha waan jeclahay iyo anaa wiilku ila joogayaa sida gabadha waa ku dhibaatoonaysa may walaal anaa laygala dardaarmay cunuga anaa haynaya yuusuf agteeda kama tegayo maya dhib male eedadii baa haynaysa adigu hawsha waa kugu badan tahay dhibaata male ballantaad gashayna dee mar hadduusan dayacmaynin ma dayacmin weeye micnaheedu meerkaama waxaad ka wadaa inaad minaha carruurteeda aan ku jeesanayo iyaga dayacayo may kuwaagaad dayacaysaa iyagaad gacan siinaysaa hadda soodiga arkayay ilmahaagiyo gaajoonaya oo qaylinaya iyaga aad ku mashquushay kaale aaba yuusuf bal kaale waxbaan kuu sheegayaa halkan fadhiiso ka waran eedadaa faa'iqa haddaad la joogtid ma ku faraxsanta waan ku faraxsanahay waa eedo fiican aada ii jecel aad baad mahadsan tahay eedo abaalgud baan kuu hayaa aabbaad iiga helisay soo dhowow eedo waan jeclahay yuusuf qalbigayga saan u ilaaliyo iyo nafteedaan u ilaalinayaa yuusuf dayac ma arkayo yuusuf dayac laakiin anigu dee maalin walba inaan arkaan doonaya yuusuf ma la ciyaari karna miya annaga oo yaa lama ciyaari kartaan maalin kastaan idin keenayaa waad la ciyaaraysaan ma la ciyaari karnaa waad la ciyaari kartaan maxaa dhacay war kaalaya war cashaya dee xaggee aadeen war kaalaya dee
orana keena adhigeena raacayna maanta was raacaynaa. Assalaamu calaykum eedo. wacalaykum assalaam eedo. Assalaamu calaykum eedo. wacalaykum assalaam eedo. allaha idin xafido eedo. allah yuusuf ma la ciyaari karaa yuusuf? haa idin la ciyaara, ilaaliyo la ciyaara. gabdho assalaamu calaykum. calaykum assalaam. assalaamu calaykum yacquub walaal. wacalaykum assalaam. maxaa loo yidhi horta caruurtu rajanimada way ku dayacantaa. yuusuf rajanimadii barwaaquuba ka qaaday, qurux iyo labis. naayaa maxaad ku hadlaysaa? dhimadee markaad dhimatid aan caruurtaada dhaqaalayna markaase bal waxaad ku hadlaysaan ka waran. may eedo saa kama wado, khalad iga fahmin eedo. micnaha waxaan ka wadaa saad u qurxisid iyo cuntada aad siisid iyo sida uu maaragtay u fiicnaa. sug waan ku fahmayaa waxaad ka wadid. idinka kaalay xaasnimada intaan leeg idinku jirtaa maxay tahay? wiilka yara rajayga aan dhaqaalaynayo ee aad haddana ku masayraysaan idinku naaga waaweyna. dadkani maxay ahaayeen? acuudu billaah min ashaytaan irajim. walaal assalaamu calaykum. ma fiicanta? haa walaale. see tihiin? waa fiicannahay. feeri adiga arrin baan kuu sheegayaa muhiima. jacaylka aad jeceshahay yuusuf yuusan noqonin wax dhibaato isaga u keena. walaalihiis waxay dareensan yihiin yuusuf in aada loo jecel yahay. aniga laftayda yuusuf aada u jecel, walaalihii way dareemeen. waxay yidhaahdeen dhowr goor yuusuf miyaad naga jeceshahay. arrintaas yuusuf halis bay ku tahay. markaa walaal haddana waad aragtaa dariskii iyo haweenkiiba say u hadlayaan. marka xigmad baa adduunka lagu maamulay. adoo wiilka jecel haddana waxba yaan lagaa dareemin. dhaqaale iyo wanaaji, laakiin yaanay noqonin wax xaasidnimo dadka kale ku abuura. ciyaalku maxay sameynayaan? ciyaalku ya walaal aad baan uga walwalaa yarka. aad baan uga walwalaa. garan maayo sababta aan uga walwalo. waxbaa ka walwalin walaal. maxaa uga walwalaysaa? ilaahay idin xafide hadda xilligii qadadaaba la joogaayo waanu baxaynaaye. kaale eedo mau yeedhaa? kaale eedo yuusuf, kaale eedo kaale. aabe maasha allah ciyaaraysa. walaal asalaamu calaykum. waa baxaynaa, waaba xilligii qadada la joogaayo. wacalaykum assalaam. hooyo dharka yuusuf oo kale ma xiran karnaa? yuusuf waa qurux badan yahay, dhar fiicanna wuu xiran yahay. hooyo aabaheen xaguu aadi? xaguu ka dhac? aabaheen waa nebi, shaqooyin badan buu ku mashquulsan yahay. waxa ugu mashquulsanee yuusuf buu ag fadhiyaa. yuusuf naga daaniyo, yuusuf iska ag fadhiyaa. war ma ahaniyo, howlo badan buu leeyahay. meel dhowd ma aragta yuusuf dharku xidhnaa? aan la yaab. qurux isugu qurux badan yahay. war soo baxa waa baxaynaaye. war soo baxa anigu waa tegey. soo baxa. wararkeen de waan baxaynaaye. waa inoo yeedhayaan. tol maxay noogu yeedhayaan? yaa maaqa niyo waxaan la yaabay yarka yuusuf. xaraga uu ka qaaday markuu hooyadii dhimatay. xaraga war maxaad ku hadlaysaa? wiilkay walaalkabaad xaasnimo ku bilowda. nin weyn baa tahay, si fiican u fikir. wiil yar oo walaalkaad xaasnimo ku bilowda. eedo timahan kuu shallaynayaa, waa labisatay, waa baxaynaa. gasho eedo gasho. tanna kula eg tahay. gasho eedo gasho. waa weynaatay maasha allah. sug eedo soo sug. eedo maxaa isiinaysaa?
waxbaan ku siinaya eedo sug eedo halkan waxaa ku jira suun aawowgay waxaa lahaa ibraahim suun iyo khamiis baa la ii dhiibay khamiiskii waxaan siiyey aabbaha oo anigana walaalkay abaan siiyey yacquub adigana waxaan ku siinayaa suunkan nebi ibraahim baa lahaa haddana waxaa marka dambana lahaa aabbaha isxaaq haddana adaan ku siiyey eedo ilaali yuusan kaa lumin adoo meelaha ku ciyaar yuusan kaa lumin ya yuusan kaa lumin ilaali eedo laakiin waxaan ka baqayaa in dadka qaari xaasidaan oo dhahaan wiilkan yar maxaa loo siiyey suunka matusaal ahaan walaalahayga iga waaweyn oo kale inay dhahaan maxaa wiilka yar suunka loo siiyey eedo waxaa ka bax maskaxdaada ka saar waxaa ku fikirin eedo maxaa daraynu leenaha ka daahaynaa soo bax eedo soo bax eedo inakeen iga horee fur albaabka ha ku fin iska ilaali eedo iska ilaali waa habeene xaasidnimada ayay muxaadaradeenu maanta ku saabsan tahay xasadku waa cudur ku dhaca qalbiga bini aadamka qofka xaasidka ahi wuxuu la dagaalansan yahay nimcada iyo fadliga ilaahay dadka uu siinayo dadka ayuu shar la doonayaa nimcadu arkana waa ka xumaanaya waa mucjiso weeye yaa ii sheegi karaa xaasidnimadu waxa ay tahay qofna weligiin ma ku fekeray bal inuu ogaado xaasidnimadu waxa ay tahay war eeg yarka yare yuusuf suunkii nebi ibraahim iyo nebi isxaaq lahaayeen ayuu xidhan yahay eedadii baa siisay ma nebi baa maxay ugu xidhayaan suunka wiilka yar eedadii baa u xidhay xaasidnimadu aabe waxa weeye in qofku doonayo dadku inaanay waxba helin waa run saa weeye waad hasiibtay xaasidnimadu waa cudur weeye dadku inay waxba helaan sharaf yeeshaan maal yeeshaan karaamo yeeshaan cilmi yeeshaan caafimaad helaan wax walba qofku waa xaasid buu ku noqonayaa hadduu qalbigiisu jirrado oo uu xaasid noqdo yaa kale oo su-aal iga jawaabaya su-aashu waxay tahay xaasidku muxuu dadka u xaasidaa aabe xaasidku miyuusan ogeyn in aakhiro la tegayo oo adduunku dhammaanayo oo ilaahay loo tegayo asabt aabe waad asiibtay sidaa weeye qofka xaasidka ah adduunkaa qiimo weyn la leh aakhirana si fiican uma xasuusna ilaahayna ma xasuusna waa qof iimaankiisu daciif yahay adduunkan qofka hela ayuu moodayaa wax weyn inuu helay laakiin adduunka faajir iyo saalix qofkii xun iyo qofkii wanaagsaniba way helaan wayna waayaan qofku isagoo xun ayuu maal badan heli karaa oo cilmi yeelan karaa qofku isagoo wanaagsan ayuu fakri noqon karaa ama wax caafimaad darra ku dhici karta waxaan la yaabay hooyadeen oo nool waxaa inaga nolol fiican yuusuf qof kastaa jecel dhabtaa lagu hayaa inaga labis wacan inaga qurux badan waan fahmi waaye waxaasaan fahmi waay laakiin waxa weeye waa wax yaab leh runtii anigu waan la yaabanahay maxaad u malinaysaan idinka waxaan ka garanaya hadda anigu maxaan ka garanayaa oo wax aan la yaabay raggeena waaweyn laakiin run baa wanaagsane yuusuf waana inaga qurux badan yahay waana inaga caqli badan yahay hadalkiisa qof kasta soo jiidanaya annagu ma diidanin yuusuf in la jeclaado annaga waa jeclahay oo walaalkayo laakiin waxaan doonaynaa aabe iyo dadkuba in ay si cadaalada dadka u wada jeclaadaan war ma aragtay maalin dhaweyto isagoo suun xidhan baan arkay suunkii nebi isxaaq iyo nebi ibraahim isagoo xidhan baan arkay waan arkay waa la yaabay waan garan waayay runtii waxyaabaha la fajacay ka mid tahay moogta wiilkaa yar annagu waaweynoo taagtaagan baa suunkina lama siinaye isagaa suunka la siinaya
assalaamu calaykum xanaan, waxaan rabnay eedo faa'iqa. ma joogtee maxaad rabtaan? annagaa dan kale adigu manoo sheegi karta. hayda maxay tahay xilligan ballan la-aan aad socotaan iska socotaan? runtii annagaa rabnay adigu ma sheegi karta. runtii haddaan idiin sheego ma joogto iyadu, aabbihiin yacquubna uu maqan yahay. waxaa laga yaabaa haddaad u tagtaan isagoo yuusuf koolkoolinaya inaad kaba xumaataanba. war maxay leedahay? waryaa waxay noogu qoslaysaa. waynu weydiinaynaa inakaan u tagnabe aabaynu u tegaynaa, waxaynu weydiinaynaa sababta uu yarka suunka u siiyey ama ay eedadii u siisay. ma isagaa u ogolaaday mise islaanta iska siisay? waa soo kale ogaanaynaa maxaa loo siiyey. war eeg dhabtu ku hayaa yuusufe. waryaa jooji hadalka. adigoo markaad yaree dhabta waa lagugu qaban jiray, aaba dhabta waa kugu qaban jiray. maxaad ka hadlaysaa? maxaan sameynaa hadda? su-aasha ma weydiinaa, ma u tagnaa suunka sababta loo siiyey yarka? war naga daaya nacnacada naga baydha, annaga u tegayna weydiinayna. soo maxadan raacaysaan? u tegayna waa weydiinaynaa. maxaa? assalaamu calaykum aabe. fadhisaanbe istaagalkan bal istaagalkan. wacalaykum assalaam waraxmatullah. war aabe soo dhawaada. xaggee ka timaadeen? aabe waxaanu kan maasha allah, soo dhawaada. xoolii ka warrama. waxaanu tagnay adhigi baan la joognaa haddana ka nimi, marka waxaan rabnay inaan eedo aanu su-aal weydiino. su-aal maxaya? waxaan rabnay inaan weydiino sababta ay suunka u siisay wiilkaa yar yuusuf. sida oo kale yuhuuda su-aalo badan buu isna qabaa oo ku weydiin doona. waxaa loo siiyey suunka waxa weeye maadaama uu hooyadii dhimatay si uu u weheshado oo niyad dhis bay u tahay. suunkan anaa iskale. war hay adigu maxaa saa ugu fikiraysaan? wiilka yare niyadda loo dhisayee. su-aal kalaanu qabnaa lafteeda oo ah micnaha nebiyada la siiyaa. marka maxaa loo siiyey? anigaa nebiga xilligana anaa yacquuba, marka anigaa siiyey oo ii xidho dee eedadiina way hayso way siisay, marka idankaygay anaa u idmay. maxaa jira? war idinka maxaa idinku dhacay? waxaad ka hadlaysaan uguma fahminba eedo. ragooban baa tihiina maxaa idinku dhacay? wiilka yar niyadda loo dhisayo inaad niyadda u dhistaan baa laydinka rabay. aabe su-aal kalaa jirto aanu isweydiinaynado. yahuuda isaguna waxa uu yidhi aabe uu yuusuf buu inaga jecel yahay. may waxaasi ma jirto. dee laakiin dhabtaad ku fadhiisisa oo idinkaba soo dhabto idinkuma fadhiisan jirin markaad yaryaraydeen oo soo idinma xanaanayn jirin. warheedha maxaa idinku dhacay? soo idinma soo booqdeen haddaad meel fog degan tihiin? war balkaca waryaadha warbal na keena. oo waa maxay dee raggiina waaweyn oo waxaan islaa war raggii haddii dhibaata dhacdo lagu baxsan lahaaye idinkii baaba sida carruurta u fikirayay. waxaa daciifnimada intan la egay. assalaamu calaykum waadi salaam. waryaadhaheen saad u fikiraysaan waa maxay laakiin? eedo suunka ma rabo inaa haysto, waayo walaalahay habi kuma aha, maku faraxsanaa. ta kale aabe inuu dhabta igu qabto walaalahay way ka xumaadeen. ma rabo walaalahay inay iga xumaadaan. waan ka dhuumanayaa eedo waan ka dhuumanayaa aykaadi. hay soo helaysaa. yuusuf istaag eeleeda istaag hadda kuma qaban karee. war biyaha ku dhicin. biyaha ku dhicin eedo. nakeen waa ku qabtay. nakeen waa baxaynaa. biyaha ku dhicin eedo. waa khatar halis weeye. ciyaar baad adiga moodaysaa laakiin waa halis. eedo
soo bax. oo ka cararay alla istaag yuusuf oh allo lugta alla lugta waa ku qabtay waa ka cararayaa may soo heli karto. yuusuf istaag. inakeen gurigii baan aadaynaa. dhooqaa iska buuxisay iyo uskag. gurigaan ku geynaa waan ku qubeynayaa. waana qubaysatid waa idaalise. qubayso qoryaa. maanta oo dhan buu dhooqa ku dhex jiray. qubayso tima badanaa. qoryaa qubayso. maxaad gacmaha la dhararinaysaa? qubayso soo gacma ma lihid. iska dah intaas biyo unbuu rabay saa wuxuu raaciyee. uskag badan ma leh waa nadiif. yuusuf istaag. halka istaag. haye fadhiiso. waxaynu ciyaaraynaa dhuumaalaysi. indhaha layga xiray. haye dhuunta waad isoo helayaa. haye haddaan kaa furayaa. haye haddaan soo helayaa. waa idin helayaa. mee so xagganaan ka eegayaa. dhumaalaysi bay la ciyaareen. waa ku hela horta adiga. istaag bariyaa waan ku qabtay. istaag kii kale waan soo helayaa. waa ku helay adigana waa ku helay. Yusuf xagguu ku dhuuntay yuusuf? labadii kale waan helay laakiin yuusuf waan waayey. xagguu aaday? saan yeelnaa? maxaa ku dhacay? eedadii aan usoo sheegno. inakeen eedadiis faa'iqa aan usoo sheegna. eedda faa'iqo. yuusuf eedame. eedda dhumaalaysi baan ciyaaraynay. yuusuf waanu weynay meeshuu ku dhuuntay. ma naqaano wax ku dhacay eeddo. ma garanayno. eedda faa'iqa meeday? eeddo faa'iqa maxaa ku dhacay wiilkii? yuusuf maxaa ku dhacay? ma garanayno. waa dhumaalaysananay. xaggee? allah bal itusa meeshaad ku ciyaarayseen. bal itusa allah ilaah waana caabaynine. wiilkii ammaanada ee walaalka ii dhibtay ayaan lala yahay. alla ilaah naa asturey. me yuusuf halkanaan ka eega. isug yuusuf ma joogo. allah eedda ma joogo yuusuf halkan. allah yuusuf alla wadnaha. alla tala xagguu aaday. allah meel kasta waan ka baadhay. yuusuf